taliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug ee Puntland ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka booliska ee degmada Galdogob isagoona u magacaabay taliye cusub. wariyahayaga Ciise Xasan Ciise ayaa nooga soo warramay Galdogob. wafdi aad u ballaaran oo uu hogaaminayo taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug Cismaan Xasan Cawki Afdilow ayaa soo gaaray degmada Galdogob ee gobolka Mudug. taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ayaa xilkii ka wareejiyay taliyihii hore ee saldhigga booliska degmada Galdogob Korneel Ismaaciil Warsame Xirsi Cardaf wuxuuna u magacaabay taliyaha cusub ee saldhigga booliska degmada Galdogob Korneel Cabdixamiid Warsame Cilmi waxaana ugu horeyntii kelimad ka jeediyay saldhigga booliska degmada Galdogob oo ay xil wareejintu ka dhacaysay gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax Maxamed Ayaxle. waxaan soo dhaweynaa taliyaha qaybta cusub Cismaan Xasan oo maanta degmada Galdogob jooga soo u socday xil wareejinta laba taliye kii hore Ismaaciil Warsame iyo taliyaha cusub Cabdixamiid. waxaan filayaa hadii lahayd inuu qayb ka noqon doono wax badan oo la qabto gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galdogob. سيادة كيسيدة تلي واحد ماشى ضياء وعيدا كي بوليسكا علينا كان هرب ماشوا هاي إسماعيل خليه هرب إسماعيل وسوق شقي وقال محمد بكر قبط حتى الماضي دونتي وحو إسماعيل كقبطي وحنا لقاش كان كده ضد ما كل شيء وربرتي أنت اللي يقول دولة اللي أو برنامج مشروع وحنا المركع shaqadu inay sidii si ka fiican u socoto barobartiga halka ka muuqda boolisku leeyahay la ilaaliyo. taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ayaa taliye cusub u magacaabay saldhigga booliska degmada Galdogob wuxuuna ammaan u jeediyay taliyihii hore ee saldhigga booliska degmada Galdogob Korneel Ismaaciil Warsame Xirsi oo wax badan ka soo qabtay booliska iyo saldhigga degmada Galdogob. marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin taliyihii saldhiggu waa kan barsho wanaagsan ciidanow ku soo dhawaada. taliyihii saldhigga horena waxa weeye waxaanu kala wareegaynaa xafiisyadii iyo qalabkii iyo dhulkii uu hayay abaalmarintiisana waa uu leeyahay waxa uu qabtay odaytinimada ah iyo wadaniyadda mas'uuliyadda taariikhda sheegaysa annaguna waxa weeye dee wixii awoodayada ah iyo waxaan u gudbin karno madaxda naga sarraysa iyo dawladda waan u gudbinaynaa dalcaad ha noqoto ama bilad ha noqoto ama abaalmarin ha noqoto waxaasna xaq u leeyahay in maaragtay waxyaalaha loogu yimid iyo dhulka bannaan iyo saldhiggiyo diyaarsan iyo ciidankiyo diyaarsan oo loogu yimid aad iyo aad baa maaragtay taliyihii saldhigga hore u mahadsan yahay. dhanka kalena taliyaha xilka laga qaaday Korneel Ismaaciil Warsame Xirsi ayaa soo dhaweeyay xilka qaadista lagu sameeyay wuxuuna soo dhaweeyay taliyaha cusub ee booliska degmada Galdogob sidoo kalena waxa uu kula dardaarmay booliska degmada Galdogob inay la shaqeeyaan taliyaha iyo inay u adeegaan bulshadooda. waxaan raalli ku ahay bedelka waxaan raalli ku ahay taliyaha qaybta waxaan raalli ku ahay ninka la igu bedelayo waxaan raalli ku ahay degmada wax isbedel ugu jeey kala bedelanaya shooq baan raalli ku ahay waxaan u hambalyeeynaa askarta booliska ah taliyaha qaybta dhammaan booliska u hambalyeynaya Puntland iyo dawladda askarta Galdogob waxaan idinkula talinayaa la shaqeeya taliyaha cusub oo la keenay. taliyaha cusub ee loo magacaabay saldhigga booliska degmada Galdogob Korneel Cabdixamiid Warsame Cilmi ayaa sheegay inuu tayayn doono ciidanka booliska degmada Galdogob iyo inuu ilaalin doono hantida saldhigga booliska degmada Galdogob. waxaan rajeynayaa insha Allah in aanu tayayno ciidanka booliska anagoo la kaashanayno saraakiishayada cusub oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta gobolka Mudug insha Allah sida Ismaaciil u sheegay dhulka iyo booliska waxyaalaha uu leeyahay hantida uu leeyahay oo ay ka mid yihiin dhulka bannaan ay ka mid yihiin guryaha dhisan oo hadeer saldhigga ah iyo ciidanka insha Allah wixii hanti boolisku leeyahay in gacanteeda loogu yimaado in sida Ismaaciil u sheegay ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Puntland ummadda reer Galdogob inay leedahay dhulkaas inaan wax ku sii daramaahna inaan waxba iska dhimin. ugu dambeyntiina taliyihii hore ee booliska degmada Galdogob oo xilka laga qaaday ayaa tilmaamo ka bixiyay tirada iyo mitiraadka xirada booliska degmada Galdogob wuxuuna taliyaha qaybta gobolka Mudug taliyaha cusub ee saldhigga gudoomiyaha degmada Galdogob iyo askartaba ku soo wareejiyay dhinacyada iyo cabirada uu leeyahay saldhigga degmada Galdogob.
ciise xasan ciise Soomaali Cable galdagob